wasaaradda gargaarka oo hogaaminaysa guddi heer wasiir ah ee dhowaan uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha xukuumadda dalka ayaa xilligan dadaal xoogan waxa ay ka dhex bilaabeen hay-adaha ka shaqeeya gargaarka iyo sidii loo xoojin lahaa u gurmashada loo samaynayo dadka ay saamaynta ku yeelatay fatahadda biyaha webiga Shabeelle. wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ahna guddoomiyaha guddiga heer wasiir ee loo magacaabay ka jawaabista fatahadda biyaha webiga Shabeelle ayaa sheegay isaga oo ka qaybgelaya shir arrimaha bini'aadanimada ee maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho in madasha maanta ka qabsoontay caasimadda ay qayb ka tahay dadaallo guddiga ay wadaan ee ku aadan sidii wax loogu qaban lahaa dadka wax ku noqday musiibada fatahadda biyaha webiga Shabeelle. Xamse Saciid Xamse wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya iyo xildhibaan Cabdullaahi Goodax Bare wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda dalka ayaa goobta ka hadlay waxaana ay ka warrameen muhiimadda shirka maanta uu leeyahay. maanta waxaan la kulannay bahda u gargaarto markay waxyaalaha hadda dhacay oo kale ay dhacaan hadday yihiin muxuu ahaa hay-adihii muxuu ahaa shisheeye iyo hadday yihiin dalalka muxuu ahaa Soomaali saaxiibka la ah muxuu ahaa iyo hadday yihiin hay-adaha maxalliga ee waddanku leeyahay maantay dood weyn ahayd wasaaradda waxay soo bandhigeen shaqada fatahadda iyo meesha fatahaddu marayso oo dalka oo dhan mawduuca loogu hadlays maanta wuxuu ahay xaaladda ka jiro fatahadda waddanka waa Hirshabeelle waa Jubbaland waa Koonfur Galbeed fursad fiican ayaan isku helnaa anaga iyo deeq bixiyaasha anagoo u bandhigin xaaladda waddanka ka jiro si degdeg waddanka loo gurmado laakiin shaqo badan ay qabteen isbedel weyn ayaa ka dhacay sanadka hore daadka markuu dhacay dadkiisa kadis laakiin sanadkan alxamdulillah waxaa lagu guulaystay ilaa kumanaan qofood in meesha laga badbaadiyo taasna waa shaqo ay qabteen waxaan rajaynaynaa waqtiga soo socda waxaa laga hadlay haddana mustaqbalka dambe maxaa laga qaban karaa si looga hortagi lahaa fatahadahan waddanka ka jiro taasna waa istaraatiiji u baahan dawladda waxaan kaloo deeqbixiyaasha kula hadalnay si toos ah inay dawladda ula shaqeeyaan dawladda federaalka. shirka ayaa markii uu soo dhammaaday kadib waxaa laga soo saaray warmurtiyad looga hadlayo qodobadii ugu muhiimsanaa ee shirka looga hadlay. agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya ayaa shirka kadib warbaahinta u aqriyay nuxurka qodobadii ugu muhiimsanaa ee ay ku heshiiyeen xubnaha maanta ku kulmay magaalada Muqdisho. ugu dambayntiina ka qaybgalayaasha shirkan ayaa isku raacay in la xoojiyo guud ahaanba howlaha gargaarka ah ee la doonayo sidii wax loogu qaban lahaa dhibaatada ay geysteen biyaha fatahadda biyaha webiga Shabeelle. waxaa kale oo ay isla garteen in la qaado tallaabooyin dheeraad ah hadday suurtagal tahay taas oo mashaariicda hadda hay-adaha wadaan loogu weecin karo in wax loogu qabto dadka ay daadadka iyo fatahaaduhu saameeyeen in la sameeyo xog wadaag information sharing si ay taasi wax uga tarto jawaabta laga bixinayo daadadka in si muuqato loo kordhiyo gargaarka iyo deeqaha ay bixiyaan shakhsiyaadka deeq-bixiyaasha iyo qurba joogta. Cumar Maxamed Somane, Universal TV, Muqdisho.